السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Juba Institute of Professionals. وكورسات independent English course. وأنا بوجا photos session English one book 1 10 26 page 81. ويا 10 كلمات وحكم بالأمر يا أنا قال لو بقول إحنا نكو increase وزيادة increase وزيادة increase وزيادة increase or no وزيادة. To increase something is to make it larger or more. واحد ما كانت بديسال They have increased waxay kordhiyeen ama siyaadiyeen the price qiimaha of a gas ee shidaalka by 15 cents 15 cents ay ku dareen marka to increase waa siyaadin ama kordhin something is to make it larger or more. They have increased the price of gas by 15 cents marka erga increase waa kordhin. Lord waa sayid ama mudane. Lord waa sayid ama mudane ama rabbi. marka erayga lord waxa dhihi jiray badana boqortooyada Ingiriiska oo kale qofka madaxda ama qoyska sharafta ka dhashay ayay lord dhihi jireen lord. erayga sidoo kale my lord hadaad maqasho waa erayga kuwa maxkamadaha iyo marka la hadlayaan ku ixtiraam waxay dhahaan my lord bay dhahaan sayidkaygiyo adoo meeshan sayid ka dhahan oo kale sayid hebel meesha ka dhahan by lord dhahan. Long ago waayii hore a lord was a man wuxuu ahaan jiray nin in charge of a town oo magaalo mas'uulka The lord of the town sayidka ama ninkii magaalada mas'uulka ka ahaa was not kind naxariis ma lahayn was not kind. Aw waa markii qofka dayn lagu leeyahay aw haddaan ku dhaho I owe you money lacag ayaad ugu leedahay noqonaysa ficilada kale uu ka duwan yahay hadda fiiri I owe you hadda dad I love you haddii noqon lahayd haddaan ku jeclaa soo noqotay saas ma hadda kan waa cagsi I owe you يعني بدنا subjectiga ayaa lagu leeyahay deynta I owe you. To owe is to have to pay or give back something received from another. waa marka qof wax uu ku leeyahay aad bixinayso deyn lagu leeyahay. tusaale ahaan ujeeda I owed him wuxuu igu lahaa fiiri I owed him wuxuu igu lahaa $20 $20 so I paid him back waan iska bixiyay fiiri I owed him wuxuu igu lahaa wey $20 $20 so I paid him back waan celi marka fiiri midka subjectiga ee sember wax lagu leeyahay kanana waxa leh ficilada kale laakiin cagsi ficilada Ingiriiska oo kale dhan uu ka duwan yahay saa la soco I owed him wuxuu igu lahaa $20 $20 so I paid him back waan iska bixiyay. Position waa booska bay noqotaa boss ama meel yani noqotaa position. sidoo kale title-ka uu qofku hayana way noqotaa. A position is the way something is placed waa meesha shay yaalo. How can you sit sida ugu fadhiisan kartaa in that position habkaas ama qaabkaas ama meesha sida ugu fadhiisan kartaa. Raise waxay noqotaa sare u qaadidna way noqotaa wax marka kor u qaado yani noqotaa raise your hand gacmaha kor u qaado kale marka loo leeyahay raise waa sare u qaadid way noqotaa kor u qaadid. waxay kaloo noqotaa soo korin raise up oo kale marka la dhaho korin way noqotaa marka qofka la koriyo ilmaha kale saacash kale ku arag. To raise something is to lift it up waa marka kor u qaado. We had to work together waxaan ku qasbay inaan isla shaqeyno to raise the last piece saa sare u qaadno cadka ugu dambeeyay. We had to work together waxaan ku qasbanay inaan isla shaqeyno have to way ka timid. We had to work together waxaan ku qasbanay inaan isla shaqeyno to raise saa sare u qaadno the last piece cadka ugu dambeeyay marka raise waa sare u qaadid bay noqotaa kordhinna way noqotaa si kale marka loo fiiriyo. Responsible mas'uulka hadda waa adjective responsible qof mas'uulka ama waajibaad saaran yahay wacda erayga responsible marka qofka la eedanayo you are responsible adaa mas'uulka dhibkan waa dhici kartaa. Responsible qof mas'uula ama macquul lama noqon. If a person is responsible qofka hadduu yahay responsible they do the right things waxay sameeyaan waxyaabaha saxda ah bay I try waxaan isku dayay to be responsible inaan noqdo qof mas'uul ah and save money aan lacag kaydiyo. Save money waa marka lacag kaydiso ama aad meel dhigto. I try waxaan isku dayay to be responsible inaan noqdo qof mas'uul ah and save money aan lacag meel dhigo ama aan kaydiyo kaydin way save. Sight aragti baa la dhahaa sight waa aragtida ama aragga waa la dhahaa sight. sidoo kale meelaha lagu dalxiiso ee la soo fiiriyana sight baa la dhahaa. A sight is something interesting to see
وواحد يصل إلى عرفته هذا أرجع معناه بدون بوله لكن سيمبل هذا معناه قرا sight أركتده والله my sight is not good أرجع مفعل وكذا أرجع لا sight أرجع أركتده والله لكن هذا ميلا حكى الله ميلا الوضع الحصل صافي a sight is something interesting وشيء حصل تسين عرفته I saw the pyramids وحارك أهرامته of Egypt مصر pyramids وأهرامته of Egypt مصر what a sight الله ما حي أركتفي عنها spot وحالها meel wax ka dhaceen ayaa badanaa spot la dhahaa sidoo kale barabarahana waa la dhahaa spot barabaraha sida shabeelka oo kale spots waxa barabara leh ama dhibca dhibca la dhihi karaa sidoo kale fin oo kale hadduu kaa soo baxay spot baa la dhihi karaa a spot is a place where something happens meesha wax ka dhaceen way the kitchen kushiinka is a good spot waa meel wanaagsan to eat meals oo cunto laga cuno marka kitchen waa matbaxa ama kushiinka structure waa dhisme structure waxaa la dhismaa a structure is a building they just built a beautiful new structure downtown they just built waxay mar dhow dhiseen a beautiful new structure dhisme cusub oo qurux badan downtown magaalada hoose hall waa wixii oo dhan hall wixii oo dhan wey hall means all of the subject wixii oo dhan I ate the whole pie waxaan cunay canjeeradii oo dhan ama rootiga pie waa rooti ama canjeero wax saa u wareegsan baa xalaa waa adu bur la duway wareegsan baa xalaa pie we don't have any more wax soo haray mala I ate waxaan cunay the whole pie pie-ga dhan waan cunay we don't have any more wax noo soo haray mala aad iyo aad baad mahadsantihiin fadlan akhri short story-ga kana shaqee exercise page 82 iyo 83 dhammaan exercise waxaan u baahanahay isbuuca markuu dhamaada la iska rabaa